laakiin adigoo lagugu yaqiina nabiga calayhi salaatu wasalaam janaabkiisa iyo qadarkiisa inaad nuqsaan u nisbayso inaad injir ku sheegto inaad xaqirto dadka weynaynaya. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن ونكسن داودياش قروحda badan ee ku xiran YouTube channel-kayga Tita Cadde meel walba dunida ka joogtaan iyo si walba muuqaalkan ku soo gaari doon waxaan ku leeyahay maalin wanaagsan. waxaan rajeynayaa maalintaada inay ku wanaagsan tahay waqti fiican aad ku qaadanayso. haddii aad cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe dhaada channelka gambaleelkana furatid si ay ku soo gaaraan muuqaaladii ugu dambeeyay fiidiyoogana like saar. waana ku mahadsantihiin mar walba daawashada fiidiyodan soo dhigo kuna soo dhawaada muuqaal cusub. muuqaalkan wuu ka duwan yahay dhammaan muuqaaladii hore aan wax ku falanqayn jiray. maanta wadaado ayaan falanqayn doonaa. waa Sheikh Umul iyo Sheikh Somow oo runtii maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada aad u haystay ayagoo midka kale meeg u qaadanaya oo kan kale u jawaabaya. waxayna arrintaa ka dhalatay kadib markii maalmo dhoweyd uu magaalada ku geeriyooday allah u naxariistay magaalada Muqdisho uu ku geeriyooday allah u naxariistay caalimka weyn Sheikh Ismaan Xidig. geerida Xidig kadib ayaa buuqan horta u dhashay nin la yiraahdo Ciyow ayaana fidnadaani kiciyay oo dhaliyay labadan qofoodna inay maanta baraha bulshada la hadalhaayo keenay. Sheikh Ciyow wuxuu sameeyay markii geeriyooday Sheikh Ismaan Xidig ayuu war ahlu sunna wal jameeca ka carootay oo geerida Sheikh Ismaan Xidig uu ku duraayo wadaadka geeriyooday ayuu bartiisa Facebook ku soo qoray page-kiisa kadib buuqa ka dhashay. weliba culimada al-sunna waxay codsatay ninkaas in sharciga la horkeeno walow ay booliiska soo qabteen haddana waqti gaaban kadib si farsamo ah ayaa xabsiga loogu sii daayay. kadib Sheikh Umul oo u hiilinaya ninka Ciyow ah ayaa arrinta isku soo dhex tuuray kadibna meeshaas ayuu buuq ka dhashay. marka hore waxaan rabaa inay la aragtaan Sheikh Umul oo meeg u qaatay Somow. wadaadkan horarka هدي حبيب مالنا النصارى مالنا كوصار الصومولي هذا الكيس الدبي هذا الشيخ أبو دفاعي هذا الكيس الدبي في صدى نبي محمد كبر صلى الله عليه وسلم إنك ولاد بنقال رسولك وكشجعي حديث أوليه رسولك وحولي من لم يحزن بموت العالم فهو منافق. روحا لم يمكن نينك عالم بمشهديس روحا لم يمكن ومنافق بنبي محمد وانا بيناله نبي محمد حديثنا معه أصبوا ميشا تاغن بودجيري يا نبي كبير أبورنا صلى الله عليه وسلم أرتبوا تاغن أبو أبوري ورسول رسولك صلى الله عليه وسلم سوجدين با Sheikh Umul meeg toosoo qaatay waa wadaad Soomaali boqolkii 30 ama boqolkii 50 ilaa boqolkii 60 ay aaminsan tahay wadaadnimadiisa. haddana saa u jeediin akhlaaqiyadkiisa wadaadnimo waa xadgudbaya. wuxuu leeyahay nin kale oo wadaad ah oo ka tirsan culimada ahlu sunna ayuu wuxuu ku tilmaamayaa inuu yahay horor. wuu sii falanqeynayaa wuxuuna leeyahay wuxuu been abuurtay nabi maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaato. wuxuuna ka hadlay ma ahan ayuu leeyahay xadiis asiga ayaa isla goobtuu taagan yahay ku alifay ayuu leeyahay asigoo awooda Sheikh Umul inuu dhigi karo xadiiskan inuu saxiix yahay, xadiiskan inuu daciif yahay, xadiiskan inuu sanadkii uu la wixii waxaas dhan uu ka hadli karo ayuu wuxuu sheegay dhammaanba in xadiiskan waxba ka jirin. laakiin Sheikh Somow oo runtii arrinkaa ka jawaabaya asigana meeg u qaatay tookadiis balaa isla arag waxa dhan baa isku miisaami doonaa. suyuudi waxaan doonay in aan kulmiyo kitaabkaasoo aan ku kulmi akhbaarta oo nabawiyada ah allahumma salli wa sallim alayhi iyo aasaarta nabiga laga wariyay إسناد صحيح على اللغوية أو وليب وثيقة هيك موثوق مركو وعليها نت الله بلا وما عن مثل يالدا إلى منتهى السند إلى غاية السند مركا إمام سيودي أو حافظة أو متقنة أو جلالة ديسة يا عظمة ديسة يا علم ديسة يا عرفان ديسة اللي هو فرسيها أو أئمة الحديث كجرة أو وليبا تدخل مراجعنا أوه
ورجاش آدك أو عالمك أكملك وألفية أو تغانين أو لا يا الشيخ أبو البئني سوقات ألفية السيودي أي إلى سوقات تبى لا يا كتاب حديث أو سوقوري شيخه أو كتاب كيسة أو لباب الحديث ليلى أو كسوقوري مطبعنا أنا عن هاي وحكو قرايا بابك صدق إيه التضمات وحوليها سيد عن حديث وشيخ وقال عليه الصلاة والسلام من لم يحزن لموت العالم فهو منافق قالها 3 مرات حديث كاس مركة ونبي قول عليه الصلاة والسلام وهل كان أكشاقي لا ياب ملها إنه سنقول الحديث وحال ياب له سد حرموض أو قطع له كو إنه كل يغادو من علماء كمدة حديث كو شيغايو إنه يهي حديث بارتا يهو حديث آنجرين أو حديث كاسوا بيان أو يرادو أنو حديث كشيغايو وحكرو كل يغادي أسا عبورتي حلقة أو تاقناي تلفزيون أو يري ما حديث كاس كتاب كاس كوي على صومالي علماء صوماليين كتاب كاس أو لباب الحديث كحديث كتاب كاس كوي على أو إمام السيودي تضرب غلا سنة كور أو ألفين أو جلالي سأبقتين وكتاب كيس لباب الحديث وكو صومري ميا شيخ صومو حد عبورتي كذبك أنت أسلأك افترى أنت أسلأك حقوقي هيا ولا كي شيخ محمد عبد أبو وحان كلام ويدينا يا أنا يقول لي هالتغياب ملك لكن أديك ولقوا يقين النبي عليه الصلاة والسلام جناب كيسة يقدر كيسة إنا النقصان نسبيسو إنا إنجركو شيرتو إنا الحقرتو تتكوينينا المولد كيسة سميها يعني مشركين أكو شيرتو أدول لقوا يقين ميا أرغو لقوا عايا حديث نبي عليه الصلاة والسلام وحنكون فران أوكاليا حديثك ما صحيحة ما موقوفة ما متصلة ما مرفوعة درجة الحديث حيث مدهن حديث سؤال شاس خطاني إمام السيودي يا ويديس حديث أساس صاري كتاب كيس لو حوسر دي إنه صحيح وحاني هين أو أروري هين وحديث هذا حديث كسور جاري وحنكون سيجا حديث كان توضباتك يا شمتي أنا ولمن يا آبائي شيخ محمد شيخ أبوك رحمه الله رحمة الأبرار أو إيه أخي أفرت يتضوى سنة كور حديث أنا اللي أخي في السنة هل كان سأركتين سومون وقربحي وحي لدهي أديك ألفتي دليشيديو كاني وحواي وحعد وصوبان ديغو وحعد markii uu arinkaasi cadeeyay oo arinkaasi uu bayaaniyay uu cadeeyayna ninkii sheekh umul ahaa muxuu ka yiri hadana xadiidka waxa ka aqoon kitaabka lubab alhadith lis-Suyuti wa kitab ahadith sanadkooda la wada jaro oo gooyay imaamku ayuu ku ururi 40 baab buu ka koobay باب كستنا طبعا حديث وكشاف سيدا سو أفر بقولوا حديث يو كتاب كوكلوي كتاب كاسي وكتاب مليء بالأحاديث الموضوعة والضعيفة وحاتفك وأفك كتشوبة أحاديث بين أبو رضا وموضوعة إياك وضعيف سيدا سو نقول كتاب markii xadiiska la keenay oo cadeyntii loo soo bandhigayna saa aragteen ayuu ugu jidbaxay waxa waaye falaariye dhahda Soomaali galgalasha kaaga ma harto shalay wuxuu lahaa asigaa alifay maantana wuxuu dhahay xadiisku waxa waaye daciif waaye waa ka saa arkaysiinba horta sheekh umul wuxuu ahaan jiray asalkiisii hore dadkii diinta soo baray quraanka soo baray tafsiirka soo baray wax kasto oo noloshiisa soo baray horta ahlu sunna wal jamiici ahaayeen
jameecada qaadiriyu ka tirsanaan jiray saalixiyuu kasii ahaa laakiin waa ogtihiin waddanka markii dambe adiga 80meeyadii qandaraasiyo akhwaan muslimiinka yimid dadkii dhuuni raacay noqdeen horta qof suufiya oo ahlul adduun ma arkaysid laakiin qof wahaabiya oo ahlul adduun waxaa aan ma ka shaqeeyaan laakiin qofka markuu suufi yahay ahlul adduunba ma ah aakhiro uu badan yahay sheekh suufi ma arkaysid dabaq dhisanaayo suufi ma arkaysid ganacsiga daba wareegaayo suufi ma arkaysid shirkad leh dadkan waa aragtay qamiis helilaacayo $500 joogo ganacsiyo daaro suufi ma arkaysid dhiig islaam oo la banaysanaayo suufi ma arkaysid maxaa la yiraahdaa waxaas hala sameeyo dhahayo suufi ma arkaysid dadka diinta ka saarayo dadkan gadaalay ka imaadeen Soomaali waxay dhahdaa gadaalka gaar goob dumis ah diintan yaa badbaadiyey inay dadka Soomaaliyeed 100% muslim ahaadaan yaa ku simay oo badbaadiyey waa suufi waay wadamadan yaa sida oo Sheekh Usuli hadda video aan soo wado oo noogu cadeyn doono wadamadan oo dhan ugu hareeraysan sida Suudaan Ethiopia Kenya Eritrea cid kasto waxay leedahay xoogaa Christian iyo xoogaa isku dardar laakiin Soomaaliya inay 100% muslim ahaato waxaa ku sugtay culimada ahlus sunna wal jameeca gaar ahaan suufiyiinta weliba manhajkoodii lagu ilaaliyay hadda wuxuu qiraa weliba Usuli aan soo wada Sheekh Usuli wuxuu qiraa xataa hadda dhalinyarada qurbaha wax diintu lagu ilaali karo inay ku sugnaadaan inay taa manhajka suufiyada waxaan ahlus sunna wal jameeca ahayn inay waxba ka jirin inta aad ku ogaanay aan isla aragno ninkan la yiraahdo Usuli Soomaaliyeed ee gaal laga helo maxaa yeelay qarni firiqi dhan dagaala ku jirta waxaa ku jira Ethiopia gaala leh Suudaan leh Eritrea leh kullu gaala leeyahay ilaa Soomaali waxa la 100% mis su'aashaas ma leys weydii baxthi ahaan Soomaali maxay kaga duwan tahay dadka kale ee lagu heli waa nisba gaala ilaa la isku dayay in xataa kaniisada weyn Muqdisho laga furo California shirka lagu qabtay oo sheegay in halkan tahay waxa culimadaas manhajkoodii ayaa loo baahan ana hadda qolooyinka Yurub waxaan iraahdaa manhajka علماء صوفية أن درسنا يوروب درسنا المها أساق قال لما كي إلى عليك رو حيالي قدودي كاهو الرئيسي أيوة حخابط محيبوك بدبادي استحيي يدمك بحزي وحيوزو صاري إندينو كواركيسين دينو كمقليسين شيخ أسوليو أها منهج كالصوفية أو كبدبادينو يا دالين يرادا أسيقا دينتو كوهين كارتا إسلام نمضا منهج كالصوفية لو أجيا رونتا meelaan kale inay qandaraas yihiin xaqiiq oolino og yahay marka diintan hadda ma soo degin abka abay jirtay suufiya wiligeena naqaanay dugsi looxan wiligeena naqaanay ziyaaran wiligeena naqaanay dadkan gadaalay nooga imaadeen waxa ay falayaan waa u jeediin dad Soomaaliyeed oo 100 qof hal meel inay ku dhintaan dadka ka shaqeynay waay manila bara waa maya waa dad dhiig islaamka ah agtooda wax ka een waay waa dadkii dhahay haddii 1000 jeer uu ashahaato xitaa waa la dilaa dadkii dhahay waa dadkii masaajidada dadka inta uu galeen ku dileen waay dadkan kabtood ma la gashan karo kab weyn waaye marka yaa lagu khaldin ahlus sunna wal jameeca yaa wax maanta kaaga fiican oo inaad manhajkoodii ku dhaqantid ma jirto haddii kale waxa waaye baadi cad ku sugnaanay fiidantan ku soo gabagabeynaa tan iyo kulanteedan dambe